madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga Ilhan Omar ay mudan tahay in la xiro ama dib loogu celiyo dalka Soomaaliya isagoona ku eedeeyay inay ku lug leedahay lacag bilyan dollar oo la musuqmaasuqay taas oo lagu lunsaday gobolka Minnesota. qoraal uu Trump ku daabacay mid kamid ah bariisa bulshada ayaa waxa uu ku andacooday in Ilhan Omar ay nacayb gooni ah u qabto Mareykanka wuxuuna soo jeediyay in la musaafiriyo isagoona ku celiyay eedama aan cadayn lahayn oo la xiriira in ay ku lug leedahay lacag fara badan oo lagu lunsaday gobolka Minnesota. madaxweyne Trump ayaa waxa uu dhowr jeer hore weerar afka uu ku qaaday xildhibaan Ilhan Omar iyo sidoo kale Soomaaliya isagoona Soomaaliya ku tilmaamay dal aan dawlad kala jirin isla markaana dadkoodu ay yihiin kuwa si xad dhaaf ah u soo galay dalka Mareykanka. hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo aadaya iyadoo wali gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ay Soomaalida degan ay si weyn kaga cabanayaan ciidamada ICE kuwaas oo ka qabanaya dadka Soomaaliyeed oo ay ku sheegeen in si sharci darro ay ku soo galeen gudaha Mareykanka. waxaana Soomaalida degan dalka Mareykanka soo wajahday cabsi xooggan oo ku aadan in la musaafiriyo ama la qabto taasoo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku sheegeen inuu nacayb gooni ah u qabo Soomaalida.